maanta waxaan la kulannay annagoo ah ururadii bulshada ee Jubbaland Juusa dhammaantood waxaan la kulannay ururkii igad martida noo ahaa xaqiiq raadinta doorashooyinka iyo waxyaabaha ka socda Jubbaland si wanaagsan buu ku dhacay annaguna waan u warbixinay ayaguna way noo warbixiyeen waxaas ka soo baxay in dalka iyo dadka loo turo inaysan meeshan dib innaba ha yaraatee aysan ka dhicinin bulshada reer Jubbaland waxaan u sheegaynaa inaysan wax dhibaato ah aysan jirin doorashadana sidii loogu talagalay ay ku dhacayso nabadna ay jirto waxyaabaha lagu soo qoraya social media-ha inaysan waxba ka jirin been abuur ay tahay wax dhiba uusan jirin nabad ay jirto shaqadii hadda maxay ahayd doorashadana ay gabagaba tahay marka waxaan leenahay bulshadana ha isdajiso waxaan leenahay igadna warbixintii ay rabtay way heshay wayna qaadatay wax dhibaana ma jiraan waxaan ka wada hadalnay sida ay ku dhici karto doorashadan ayaa kamid ahayd waxa kamid ahaa haddii ay maaragtay waxyaabo ay jiraan oo aan tabanayna hadaan nahay bulshada inaan sheegno annaga waxaan tabanayna ma aysan jirin wixii warbixin ahoo saxda sida ay ahayd baan u dhiibnay warbixinta saasayna ku dhamaatay magacay waa Canab Maxamed Daahir ahna musharax madaxweynaha u taagan dowlad goboleedka Jubbaland halkan waxaan caawa ku lahayn shir afar geesooda international community-ga oo loo yaqaan igad runtii waxaan ka wada hadalay habraaca doorashooyinka iyo siday doorashooyinka u dhacayaan wixii annaga concern qabnayna waan u sheegnay ayagana waxay nagala hadleen mataqaanaa in loo naxo dadka Jubbaland nabadgelyadana la ilaaliyo doorashaduna si xalaal ay ku dhacdo arrimahaas ayaan ka wada hadalay runtii anagoo ah 6 musharax ayaan caawa halkan kula kulannay ka bacdina qof walba concernkiisu sheegay waxyaalaha sida electoral commissioner-ka sida ay mataqaanaa inay doorashada si cadaalad u wadaan inay waqtigeeda mataqaanaa doorashada aan laga dib marinin inaa mataqaanaa musharaxiinta inay helaan security ciidan iyo nabadgelyadooda laga fikiro inaa mataqaanaa resource-ga wadanka sida ciidanka iyo xoolaha dadweynaha inaan u sinaano annaga iyo madaxweynaha hadda xilkiisu dhamaaday inta arrimahaas farbadan baan ka hadalay waxaan aad uga hadalay oo kale qoondada gabdhaha oo gabdhuhu ay mataqaanaa mar walba la gacan bidixeeyo waxaan brief ka siiyay ama warbixin guud ka siiyay inay jiraan mataqaanaa gabdho ka cabsi qabo inay wada dhaqameedkooda soo gudbin waayaan sidaa darteed waxaan aniga maalin dhaweeyta la kulmay gabdhihii musharaxiinta xildhibaanka rabay waxaana ku booriyay inay soo qoraan foomkaas soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka si hadhow ay markay yiraahdaan mataqaanaa
gabadh reer qabiil hebel gabar lagama hayo la yiraahdo waatana gabdhihii waa la hayaa arrimahaasaan ka wada hadalay runtii igad caawa waxay si fiican nogala hadleen inay gabdhuhu qoondadooda helaan runtii waxaa waaye waxyaalo fara badan baan isla meel dhignay waana ku guulaysanay waxaan rajaynayaa ummadda reer Jubbaland iyo mataqaana ummadda Soomaaliyeedba inay u noqoto wax ku ool iyo mataqaana hidadiilo wanaagsan dumarkana waxaan rabaa inaan u sheego codkiina ana u taagan waana idin soo dhicinaya insha Allah shaqadaasna waa ku jira martaqaana saas waa inaad u ogaataan idinkuna waa inaad kalsooni muujisaan aad baad u mahadsantihiin thank you so much